kulankani ballaaran ay soo qaban qaabisay wasaaradda warshadaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo socon doona muddo 3 cisho ah oo ay wasaaradda warshaduhu u qabatay warshadada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana kulankani ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo kamid ah xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdi Gurey waxaanu sheegay in kulankani uu faa'iido weyn u yeelan doono warshadada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaasna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire waxaanu sheegay in warshadadu ay soo saari doonto warshado fara badan oo horumar ballaaran gaarsiin doona wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa uu soo jeediyay warshadada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay wadanka horumariyaan oo ay warshado kala duwan soo saaraan waxa aanu ku dhiirigeliyay warshadada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda ay ugu horumarinayaan warshadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo horumarka dalka waxa aanu yiri siyaasaddaasi waxay ka kooban tahay aragti oo markii hore aragti yeelan waan wax doonay ilaad wax doontay heli meesoo gaari mees dadna jidkii loo gaari lahaa waanu qeexno bal waynu meel sadhigno horta nooca warshadayntii dooneen miisaankan saaraa waa kuwee waxaanu baahanay inaynu balmeer sadhigno sidii aynu heli lahayn amba aynu tababaran lahayn farsamo yaqaankeenu uga baahanay warshadaha waa inaynu naqaano inta qof aynu uga baahanay inta farsamo yaqaan aynu u baahanay dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha ururka warshadada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantoodna waxa ay sheegeen inay faa'iido weyn u tahay kulankani socon doona muddo 3 cisho ah ay u qabteen warshadada Jamhuuriyadda Soomaaliland